shacbi tiro badan masjidka jaamaca ee magaalada Hargeysa. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo kula tukaday masjidka jaamaca ee magaalada Hargeysa shacbi tiro badan oo ka mid ah kuwa ku dhaqan caasimada Hargeysa ayaa salaada kadib waxa madaxweyne ku-xigeenku uu halkaasi ka soo jeediyay khudbada ku tacalluqda munaasabada salaada ciid al-adxada isagoo oo madaxweyne ku-xigeenku hambalyo u diray guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyo shucuubta islaamka ah ee saaka ka siman xuska iyo salaada ciid al-adxada. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa rabbi uga baryay in rabbi u adkeeyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankiisa isla markaasina sanadkiisa uu ku gaarsiiyo horumar iyo aqoonsi. waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee udoogo oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Yuusuf Yaasiin. kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ahna agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland Axmed Suleymaan Dhuxul ayaa hambalyo iyo salaam u diray guud ahaan shacbiga Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta munaasabada ciidda barakeysan ee ciid al-adxa awgeed. kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna agaasimaha telefishinka qaranka Axmed Suleymaan Dhuxul ayaa waxa uu hambalyo u diray shacbiga Soomaaliland guud ahaan meel ay joogaan. wasaaradda difaaca ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa waxa uu ka waramay magaala xeebaha salaadii ciidda islamarkaasina ku tukan gobolada nooga soo diray warbixino la xidhiidha qaabkii iyo habkii hanaankii looga tukaday salaadii ciidda gobolada dalka Soomaaliland. kulanada oo ku nool magaalada xeebada Berbera ayaa maanta isugu soo baxay salaadii ciidda islamarkaasina ku tukanayay garoweyn oo ku yaala meelada dugsiga sare ee magaalada Berbera. الموجودة هي العزيز الفوز وجديد الجول ومساعد مناسبة عيدة يدعون بنان برواغي وهرمار ورئيس وزارة الدفاع إذا كنت مريد سومالي أحمد حاجي علي عظمي ورنا هيك قريب منا وكيف كنت وكان كيجي بختيي ديفك كعداي بروا فقيسا بروا كلا فقيسا وجين لا
kalena dib ku soo beegmay jawiga cimiladu mid degan iyadoo yuusuf ibraahim warsame tvga qaranka miro hay-adda alraxma alkhayriya ayaa maanta deeq xoolo noora u qaybisay qaar ka mid a dadka dayarta ee ku dhaqan caasimadda hargeysa jimciyadda alraxma alkhayriya ayaa 2 kun oo qoys oo ku dhaqan xaafadda sheekh cumar ee magaalada hargeysa waxay u qaybisay deeq adhi ah horeyna munaasabadii deeqdaasi adhigaad ay ku wareejinayeen ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha jimciyaddaasi alraxma alkhayriya cabdalle maxamed ibraahim waxaana uu ka warramay